maxaa marka socda xitaa Masar dhul baa laga haystaa laakiin tani dhinaca kale waxa la leeyahay Israa'iil cawaaqib xun bay ku noqon doontaa waayo ciidamo ku filan ma haystaan Xisbullah dagaal adag bay ku wadaa xuutiga duqeyn bay ku wadaa weerar kala go' lahayn baa socdo iska caabin xoogan baa ku socoto nidaamkooda difaacana isbuucan wixii ka dambeeyay nidaam difaac ma haystaan baa leeyahay Netanyahu gudaha Israa'iil eedeyn badan baa ku socoto hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid isbuucan wuxuu aad u dhaliilay farsamada Netanyahu iyo tirada ciidanka Israa'iilna yar yihiin dagaaladuna badan yihiin dadweynaha Israa'iiliyiinta banaanka ay taagan waa ay mudaharaadayaan waxay dalbanayaan dagaalka in la joojiyo Netanyahuna riyo u kaligiis qaba madax adeeg ayuu ku sii socdaa baa leeyahay ciidanka Israa'iil gudaha haday u galaan maxaa dhici karo qaar badan oo khibrada kamid ah waxay ka walwalsan yihiin dhinaca Israa'iil baan ka hadlayaa in ciidankooda halkaas dhaawac iyo jab weyn uu ka soo gaaro oo Lebanon ay dhibaato ka qabsato laakiin waxa la arkay muuqaal yaab leh ciidanka Israa'iil oo ku heysay wax iyaga sidii diin oo kala ah oo leh waxaanu soo celinaynaa dhulkeeni Qudus ee Jerusalem beelayn iyaga Jerusalem ilaa iyo wabiga intiisa dambe ayaanu soo ceshanaynaa macnaha waa riyadii Netanyahu iyo kooxdiis ay sheegayeen hadalkan waa hadal culus baa le aad baana loo dhaliil loo cambaaray intii ay howlgallada iyo dagaalka wadeen ciidamada Israa'iiliyiinta waxay sidoo kale dileen duqeyntii u dambeysay qaar kamid ah shaqaalaha iyo askarta UN-ka ee ku sugan koonfurta Lebanon balan marka hore idin la wadaaga Netanyahu oo amraya ciidanka Israa'iil ee gudaha u galaan koonfurta Lebanon aynu ku sii socdaan iyo ciidanka Israa'iil oo la arkay qaar kamid ah gudaha u sii galaya koonfurta kuna sii siqay Litania River asla daawan בלבנון הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת כדי לסכל סופית את איום הפלישה וכדי להרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ"ט. צריך להבין שנסראללה יצר פה כוח גדול, הוא האמין שעם הכוח הזה הוא ישמיד אותנו. waayahay taasi waxay ahayd warbixintii muujinaysa Al-Jazeera ay diyaarisay qaar kamid ah ciidanka Israa'iil oo gudaha u sii socday ciidanka Israa'iil oo dagaal ku heysaya macnaha waxay ku saabsan dagaal sahlan inuusan ahayn intaynu gelin qaybaha kale ee barnaamijka bal aynu isla eegno ninkan yaab kale Tommy Robinson xajirka reer Britain ee sida weyn Soomaalida iyo ajnabiga ugu mashquulay ninkan laakiin markan waraysi la waraysanay war aad ula yaabi doonto ayuu ku hadlayaa waxa uu leeyahay dadka Soomaalida tusaale soo qaadanaya waa dad khatar u leeyahay halis ah wuxuu leeyahay dadkan inay waxay ka soo tageen buu dhahay meel kamid ah meelaha ugu kulul Soomaaliya waxayna degeen buu leeyahay ama la dejiyay Minnesota do you think inay iyaga degeen waa la dejiyay meesha waa lagu beeru leeyahay cid ku beertana ma sheegahay waa lagu beeray dadkan wuxuu leeyahay hal mar bay aad u dhalaan buu dhahay والله دلمدنا ولا قوم مشغولة حتى قالوا ذي أكو مشوش دلمدنا ما شاء الله دلمدنا هذا لو قوم مشغولة الماء الله نو بدبادي دلمدنا هذا صوارد وانا دلام بكليه هذه ما دشت هذه هذا النمبر هذا كأخل دمان أو رج يدمر ماشي وحسكون حيا عين هي أنا جوار دلنا وحين نظيف ويسود إلهي بني آدم كوكو تلقى النول وكليه ذكر وانا دلام برشود بدنا من صوت وبلوريجين وكليه معناها dad kan ujeedo fog baa jirto Soomaalida marka waxyaabaha laga aadka looga diido waxa kamid ah meesha imaadaan horay masaajid ka dhisayaan xufaad bay soo saarayaan dad quraanka xafisanay soo saarayaan ducaad bay soo saarayaan cilad kasta ceeb kasta laga sheego laakiin waa dad diin iyo hadaf u imaaday isla markii deegaano aanan maartay muslimiintu ku yaraayeen bay masaajida iyo dacwadii iyo ka fidinayaan waa lagu soo hiranaya meesha waxay noqonaysaa meel Ilaahay lagu xuso meel dacwadii ka socoto meel quraanka lagu xafido tartamo quraan ka socoto ardaydii Soomaalida qurbaha ay wax ku bareen tartamada caalamka ka qayb galayaan macnaha waxaas oo dhan baa loo jeedaa qoysa Soomaaliyo halkii qoys 7-8 cunug qaar 10 dhowr wato oo dadkan halkiiba la rafaadayaan marka ninkan wuxuu ku leeyahay dadkan saan bay isku fidiyeen markaas uu leeyahay
معناها هذا لندن بكله أنا قاعدان كاي سجوا ري UK لكن إلا مريكان بكشة كينيا وحكي قال متقاني وكله أنا قاعدان هاي ري UK بكله هاي مقالوين كير يوروب ولا لو ري بقوله ري يوروب ولا لو سي لندن لو كلمة بكله 33% ما كان نقولي بقوله معناها 67 أجنبي بين نقطة 67 أجنبي بين نقطة معناها waxaan noqonay buu leeyahay dad aad u yar minority baan ka noqonay magaaladeenna Paris aasoo kale noqon magaalooyinka waaweyn ee reer Yurub adduunka oo dhan waa la wareegay soo galootiga ajnabiga muslimiinta Soomaalida la wareegay buu leeyahay ballinka ila daawo fariinta uu ka gudbinaya dabcan wuxuu sheegay wax Soomaalida uu ku amaanaymaan isaga Soomaalida raba dadka inuu ku diro Soomaalida adduunka soo jeedinaya cadow buu u sameeynaya laakiin dhinaca kale wuxuu ka qaban karaa Ilaahay ummadu meel ugu talagalay sababtu Ilaahay قربان Somali u keenay isaga ma garan karo Ilaahay baa garan karo ila daawo Somalians have come from the hottest place. I knew you were going to say Minneapolis. But they've come from the hottest place in the world. Why do you think they've ended up in Minnesota? No, is it Minnesota? It is. Why have they ended up in one of the coldest parts of the United States? It's so bizarre. They haven't chose there. They've been put there. Just so you understand. So these are plantations of new voters who will, when it comes to the birth rate, will far exceed anything you're going to have. So the population growth will explode like it has across Europe, like it has in every British city. We have become 33% of London is now English. 33%. We've lost our capital. Yeah, Paris has gone to Americans. Paris has gone. It's gone. Okay, Berlin's gone. The major capitals have gone. Now they're not coming back from this cultural change, this total shift in value systems, and then the way that the politics work, and it becomes about where you're from and what you and what religion you are when they come to vote. It's not about anything else now. So we've caused such sectarian politics in the UK, which has been imported in Pakistani politics. waay kaasi waxa uu Tommy Robinson oo ka sheekeynaya saamaynta Soomaalida isla markaa fariin gudbinayo oo maar Soomaalida in lagu kacsiyo arkay fursadda kooxda Donald Trump iyo cusuriyiinta ayuu u soo dhexmaraya Soomaalida toosh ku ifinaya laakiin dhinaca kale waxba ka qaban karin buu ka sheekeynaya qodobka xiga barnaamijka aynu u gudbaynaa Iran ayaa la sheegay inay burbur baaxad weyn la gaarsiisay xaruntii korontada Kuwait saacado kadib markii la duqeeyay xarumaha korontada dalka Iran gaaraan magaalada Tehran Shiraz Qum iyo kuwa kale intii ay duqeynta Kuwait waday Iran waxa ay sidoo kale la sheegay inay halkaasi ku dishay mid kamida dadka halkaas ku nool oo la sheegay inuu yahay nin Hindiya duqeynta Iran ay ku wado dalalka Khaliijka kaliya kuma ay keen duqeymadii u dambeeyay dalka Kuwait sidoo kale waxa ay gantaalo iyo duqeyman drones ku garaacday gudaha Imaaraadka Carabta iyadoo la arkayay dab qabsaday iyo gantaalo ku dhacay qaybo kamida magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta sidoo kale Dubai saaka waxay u ahayd maalin kale oo adag kadib markii qaar kamida droneska dalka Iran halkaasi ay ku dhaceen oo burbur baaxad leh uu soo gaaray Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay hadda si toosa in uu wajahaysaa gantaalada iyo duqeynta dalka Iran waxa ay digniin siisay dalalka Khaliijka in ay iyagu ka madax banaanaadaan isla markaana ay cambaarayaan weerarka Israa'iil iyo Mareykanka ay ku qaadeen gudaha dalka Iran laakiin ilaa hadda su'aasha la isweydiinaya waxa ay tahay sababta dalalka Khaliijka xitaa ay u awoodi waayeen in ay cambaarayaan weeraradan iyo dagaalada socdo oo ay markaasi digniin u diraan Mareykanka iyo Israa'iil isla markaana u dalbadaan in dagaalka degdeg loo joojiyo mid kamida dadka arrimaha Khaliijka aadka wax uga hadlay ee Qatariyana professor jaamacadeeda ayaa sheegay in isagu shock ku noqotay lama filaan in dalalkii muslimiinta gaaraan Khaliijkii ay ka aamuseen dagaalkan iyagoo waliba dhibaato ay ka soo gaarayso ay awoodi kari waayeen inay cambaarayaan dagaalkan dalbadaan degdeg in loo joojiyo inay isku yimaadaan oo ay shir qabtaan inay dhahaan Mareykan Israa'iil dagaalkan waa dagaal sharci darro ah waxa cambaaray madaxweynaha South Africa waxa cambaaray ra'iisul wasaaraha Spain laakiin dalal badan cambaaray laakiin waxa cambaareen la dalalkii Khaliijka oo iyaga dagaalkan uu saameyn dhaqaale mid amni intaba uu ku yeeshay waxay awoodi kari waayeen inay cambaarayaan oo ay ka hadlaan waayahay saaxiibada qiimiga leh waxaynu barnaamijka ku soo afjaraynaa qaybtan xuutiga dalka Yemen tan intii ay soo galeen dagaalka
isbuucan oo ay ku dhawaaqeen inay qayb ka yihiin waxay beegsadeen dhowr jeer gudaha Israa'iil laakiin markan weerarkii u dambeeyay waxa ay si joogto ah u duqeeyeen koonfurta Israa'iil halkaas oo la sheegay maanta in burbur ay soo gaartay koonfurta Israa'iil xuutiga dalka Yemen waxa ay ballan qaadeen inay iyagu dagaalkan wadi doonaan oo ay joojin doonin ilaa Israa'iil inta ay ka joojinayso weerarada ay ka wado dalalka muslimiinta gaar ahaan Lubnaan Falastiin iyo Iran waxay sheegtay Israa'iil gardaradeeda inay gaartay heer ay xadgudubyo aan kala go' lahayn u geysato dalalkan xuutiga waxay sheegtay inay ogolaan doonin inay isdhiibto oo ay raali ka noqoto dulmi ay arkayso markii ay dagaalka ku soo biirayeen xuutiyiintu waxay sheegeen inay ku sababtay dagaalka inay ku soo biiraan kadib markii ay arkeen dhibaatada Israa'iil ay u geysanayso shacabka Iiraaniyiinta iyo kuwa Lubnaan iyo inay beegsanayso goobaha rayidka sidaa darteed waxa ay sheegeen xuutiga inay iyagu dagaalkan qayb ku yihiin waliba xuutiyiintu waxay digniin u direen Mareykanka oo ay sheegeen haddii dagaalkan uu ku soo biiro in isaguna ay beegsan doonaan maraakiibtiisa badda cas baabu mandabna la xiri doono waa haddii dagaalka ay ku soo biiraan durbaba xuutiyiinta baabu mandab waxay ka xireen maraakiibta Israa'iil ka socota ama u socota gaaran ilaad ilaa ay hadda Israa'iil wax weerar ah oo dhanka xuutiga ay u qaadeen ma jirto xaalad dagaal oo daran ba waxay uga furan tahay dhinaca Lubnaan dhinaca Iran laakiin waxaan shaki ku jirnaa Israa'iil ay qorsheynayso inay beegsato oo ay duqayso gudaha dalka Yemen gaar ahaan deegaanada xuutiyiinta magaalada Sanaa iyo goobaha kale ay ku sugayeen Xudayda gooba ay hore u duqaysay dabcan Israa'iil horey weer dagaalkii hore ay la gashay xuutiga duqayn way gaarsiisay